waa isguursanay ninkii. Ninkii markaa isguursanay nin shaqaystuu ahaa, nin fiicanuu ahaa oo wanaagsan. Markii aan guursanayay aroos qurux badanuu ii dhigay, guri qurux badanuu ii sameeyey, nolol qurux badan ayuuna igeliyey. Uuraan yeeshay. Uur markaan yeeshay, gabar walaashayda ayaa hooyadayda dhashay oo aniga iga yar ayaa la ii keenay guriga. Gabadhii gurigaa la ii keenay si ay ii caawiso maadaama aan xaamilo ahaa. Marka guri gabadha ay caawinaysay. Waxaa dhacday inaan anoo cabaar marka aan xaamilo ahay oo anoo dhali rabo gabadhii la ii keenay. Gabadhii markii la ii keenay way caawin jirtay, nolosheedana way iska fiicneed. Ninkan marka wuxuu ahaa nin oo hadal badan, oo sheeko badan, oo soo dhaweyn badan. Marar badan wuxuu dhihi jiray gabadha waxbuu u keeni jirayoo mar dharu u keenaa, markanu u keenaa. Mar wuxuu dhahaa gabadha yar waa guriga waa ku caajistay, banaanka u wadaa jalaataa soo siina. ma ninkaaga gabadha guriga joogta cunto u keenaya jalaatana banaanka soo siinaya? haa acuudu bilaahi. gabadha waa walaashayda. adiga walaashaa runa? Walaashayda aabahayga dhalay waay, hay iyo hooyadayda dhaleen. hay walaashaa ninkaaga ma ogolaan lahayd inuu banaanka u kaxeeyo jalaato soo siiyo, qol kula geliyeysto, cunto siiyo? ma ogolaan lahaydeen? haye Gabadhii wuxuu igu dhahay habeen wuxuu dhahaa gabadha guriga waa ku caajistay oo banaanka u wadaayo, adiga maadaama aad xaamilo tahay iska joog. Anigana waxaan ku dhahaa dhib ma lahana israaca orod, anigana ii keena ma bixi kariye. haye israaci jireen. Runtii aniga waxba uma arki jirin waxaas, maxaa yeelay gabadhan waa walaashayda, ma ahan saaxiib, ma ahan deris, ma ahan qaraabo. waxay sheekada sida ku socoto, cunugii ayaan dhalay aniga, umulaan noqday. Markii aan noqday gabadhii way caawin jirtay, sheekada sidii iska ahayd sheeko qosol, waa farxad, famil isku faraxsan camal ayaa ahayn. haye maxaad u malinaysaa inay soo socdaan? bal soo qora. anigu waxaan isleeyahay walaasha la boodaysaaba, ninka way la wareegaysaa soo socota. haye anigii umulaan noqday. Markaa umul noqday gabadhii runtii soo dhaweyn badan, cuntadiisa ayadaa u diyaarin jirtay, dharkiisa ayadaa dhaqi jirtay, wax walba ayadaa samayn jirtay. markii dambe waxaan cabaar markii aan xoogaa umashii aan kasoo baxay, cunugeyga xoogaa 6 bilood 7 bilood meelahaas uu joogo, waxaan arkay gabadhii oo xanuunsan oo nooc kale ah, oo matagayso oo nooc kale. walaashaa ma tagaysaa aragta? habeenkii intaad mataga arkin wax sanqara ma maqli jirtay? maya, weligay ma maqlin sanqar, mana isku arkin. markii laga soo tago meelahaas inaan sheeko caadi kaftan, markii inuu dhaho jalaataa soo siinaa ma ogi. dhawaq rasaas ma maqli jirin? maya habeenkii odaygaaga marmar ma kaa bixi jiray guriga? ha soo baxaaya xitaa ma arkin. kadib waxaa dhacday gabadhii inaan ku dhahay maxaa kugu dhacay, oo in badan ay u dhahday waxbay uma dhicinoo meel baa layga haayaa, oo xanuunkii gabdhaha i haayo. oo markay saas igu dhahday, marka aniga waxaan iska dhigtay wax iska caadi normal ah. waxay sheekada socotay, gabadhii waxaa ku arkay inay uur leedahay. acuudu bilaahi min ashaytaani rajiim. gabadhii uuraa kusoo baxay. gabadhii uur markuu kusoo baxay, waxaan ku dhahay uurkan yaa u leedahay. anigii waa iga qarisay oo waa ii sheegi baysay, mabiligii intaa ka baxday. aniga marka aabahaygaa u wacay, waxaan ku dhahay gabadhaada ah waxbaa ku arkay, qofka ay u yeelana ma aqaano, inay ii sheegtan way diidan tahay, marka waa inaad la hadashaa. imsaala ninkii waa u yeelay, kia u yeelan maanay anugu. aabahayga gabadhii guduhu la galayoo dharbaxshaa laga kicisho, waxaa lalahay sheeknaya ayaasaan ku yeeli. markaasay sheegtay, waxay ku dhahday walaasheeda ninka qabo baay. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waa walaashayda ninka qabo, waa isguursanay, waa issoo mehirsanay, waan isqabnaa. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa raajicuun. runtii markii saas lagu dhahay, aabahayga wejigiisa waxa ka muuqday ma umalaysan kartid. wuu soo baxay, si uu iigu sheega ayuu garan waayay, laakiin aniga waaba maqlaay oo meeshaaba taagnaa, waa dhegaysanay. markii saas lagu dhahay, runtii aniga aad baan u naxayo, waxa aan sameeyo ayaa garan waay. aabahayga marka wuxuu u tagay wadaadadii oo tolkiis ahayd, iyo tolkayga waa la wada fadhiistay. waxaa lagu dhahay ninkan labada gabdhood isla dhalatay, isla guursaday, macquul maahan, ee hala soo taliyo suu rabaa. aabahayga marka wuxuu dhahay labadeyda gabdhoodba uma ogoli, banaankaas cadka iga maro. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. tan yar i tan weyn midba uma ogoli, waa saqajaan, waa asagaaba cunug xalaal ahayn, banaanka iga maro. ninkii wuxuu dhahay ninka gabadhan waa guursaday, waa jeclaaday, waa isguursanay, uurkan anaa ii leedahay. adiga culimadii waxay ku dhaheen
gabadha weyn ayaa furmayso midda yar ayuu qabaa ninkan. Waxaa la dhahay gabadha weyn ayaa furmayso midda yar ayuu qabi karaa haddii uu guursaday. Adiga aabbahay markii saas dhahay gabadhii yareed oo walaasheeda ahayd waxay soo istaagtay ninka anaa guursaday maalinna waa rabaa habeenna waa rabaa adiga gabadhaada la israaca. runtii aabbahay markay ay saas ku dhahday aad buu u naxay. wuxuu ku dhahay midka calooshaada ku jiro waxba ma dhahay, laakiin ninkan haddaa lasii joogtid inaa cunug dambe asaga dhalay dhabtaada aadan saari doonin ogo waa lagu dhahay. waana kasoo tagnay. walaashaa tilon la joogaya markaa ninkii waa la joogaya adiga gabadhaada israacay dhahday ninkan anaa jecel anaana guursaday mana ka tagay. taas maxaa ku tilmaami lahaydeen walaal cadow saaxiib marka waxaa lagu dhahay kan calooshaada ku jiro waxba ma dhahayo dhahay aabaheyga, laakiin cunug dambe asaga dhalay dhabtaada ma saari doontid haddii aanba ku dhalay. kadib aniga waa iskaga soo tagay. runtii aad ban dismaraal u noqdayo waxaa iigu darneed ninka waxaa igala sii xanuun badneed walaasheyda. markaasa waxaa dhacday aniga waxaan ku dhahay cunug asaga dhalay xitaa maba rabiye cunugiisa xitaa waa siinaya. markaas hooyaday waxay igu dhahday cunugaaga adaa dhalay oo beri adigu ku anfacayaayo isaga ugu dhalay, laakiin waxaan oo isaga saansa qijaan ku ah cunugaaga iska siinin anagaa ku haynayno iska dhaaf haddaa meel u soctid iska bax. cunugii hooyadeyda u geeyey aniga marka waa iska soo baxay oo meeshii dhan waa kasoo tagay. meeshaan kasoo tagayoo magaala imaaday. magaalada markaa imaaday waxaan bilaabay inaan shaqo raadiyo aan shaqeeyo oo waalidiinteyda aan isku dayo inaan aabbahay mar walba wuxuu dhihi jiray meel tan aan ka arkaynin in ninkaana le haddaan tagi lahaa waa duceysnaan lahaa. marka walaashaa ninkii ku hadhayba ninkay ku hartay haa. ad marka maxaad dareemaysaa marka maadaama walaashaa ninkii kaa qaaday? aniga ninka xanuunba iguma hayoba, laakiin gabadha ayaa xanuun igu haysa oo tan igu dhigtay iyo aabaheyga tan ay ku dhigtay iyo xanuunka aabaheyga uu dareemayo mar walbo. aniga ninba meesha iima yaaloba oo ninka hadduu xumaado waaba iskaga tegi karaa, laakiin mid ila dhalatay oo hooyadeyda dhashay oo aabaheyga dhalay ayaaba igala xanuun badan waxay igu dhigtay. iyadaanba ka seexan karin oo aan kasoo jeedi karin oo aabaheyga mar walba dhaho meeshaan haddaan meel ugu tagi lahaa waa duceysnaan lahaa. aniga magaalada imaaday. magaalada markaa imaaday cabaaraan shaqeeyey. marka aan shaqeeyey aabaheyga waxaan ku dhahay marka xoogaa waxaan helay meel aan ka shaqeeyo oo fiican bishii waxaan ka qaadanayo. markaasa waxaan ku dhahay aabaheyga aabo ma jeclaan lahayd inaan meeshaan usoo wareegno oo magaaladan iskaga soo degno oo meesha oo dhan aan iskaga soo tagno. markaasuu aabaheyga wuxuu igu dhahay waa ogolahay inaan soo guurno. hooyadey marka waxay ku dhahday anaga hadda meel aan ka saynin oo aan ku cusubnahay oo ma geli karno oo gurigeen inaan iska deganaano ayaa noo roon. aabaheyga marka wuxuu igu dhahay anaa imaanayo oo meesha sii joogayo. hooyadaa way diiday oo meeshaanaan raba ay ku dhahday marka anaa imaanayo. aabaheyga meeshii wuu imaaday. aniga subaxdii shaqa aadaa galabtii ka imaadaa. aabaheyga cuntada u kariya. aniga asaga waxaa bilaabnay inaan meesha aan iskula noolaano. mar walba waxaa isku dayi jiray inaan ilowsiiyo, inaan farxad siiyo, inaan u sheekeeyo, inaan cilaan u mariyo, inaan lugaha u rariixo. aabbaha waa cilaan u marisaa? ani asaga besa isla joogno. isaga marka runtii mar walba maalin walba magaceedu soo qaadaa oo xanuun badan bay ku haysaa. maasha allah. anigana waa dareensanahay oo waxaan isleeyahay is-ilowsi inaad adiga faraxsan tahay oo waxaas aadan xusuusneen oo waxaas dareensiyaan isleeyahay. aabaheyga siduu saas u ahaa waa ii duceeyo in badanoo wuxuu igu dhihi jiray ma duceysan tahay wax ku dhima ma arkeysid farxadaan kuu rajaynaa cimrigaaga inta ku dhiman. adi marka dambe waxaan sameeyey aabaheyga inaan naag ku daray oo naag u guuriyey. aabbaha naag ku dartay war maasha allah dhaha gabadhan waa gabadh fariideeda. aabahey waxaan ku dhahay aaba maadaama aad weli aad yar tahay oo adag tahay waxaa rabaa inaan bahyar aan kuga daro aad guursatid. markii hore wuxuu igu dhahay ma hadda ma u baahni, laakiin markii dambe wuu ogolaaday oo gabar oo hal wiil haysato oo ayaan ku daray oo gabar yar ah. aabaheyga maasha allah gurigaan u dhisay meeshiiyaan dejiyey. anaa biilkiisa iyo wixiisa oo dhan bixin jiray. aniga marka waxaan bartay nin dowladda ku jiro oo wasiir ah. ninaa baratay dowladda ku jiro? nin dowladda ku jiro oo wasiiraan bartay haa. watay laisku jeclaana haysto. ninkii markaa bartay aniga marka waxaa ii dhegan nin dambe oo dhan ha guursannaas leeyahay. nin waa kii hadda walaashaada kaa raacayoo adoo fiirinaysaan maxaa marka nin weji maba lahane maxaa ka raacaysa oo aad ku guursanaysaa. waxaa dhahday ninkii wasiirka ahaa inuu in badan asaga marka wuxuu leeyahay xaas kale ayuu leeyahay. acuudu billaah. dumarku maxay horta nin xaas kale markay guur ka soo xumaado daf u idhaahdaan? ninkan xaas buu leeyahayoo
ilmuu leeyahay marka wuxuu igu dhahay nin weyn oo zaaid u weynna maahan marka wuxuu igu dhahay nin xasan leeyahay ilmaan leeyahay adigana waa ku jeclahay waxaa rabtid inaan kuu sameeyo meesha aad hadda joogtid inaan kaa qaado oo cirka sare aan ku geeyo ayaan diyaar u ahay aniga marka waxaan isdhahay nin uu abaal malahan lambar 1 lambar 2na haddayba aad ninkan dantaada aad ka dhex aragtid iska guurso ilaa dantaada aad kaga gaaraysid maalintuu kaa dhaqaajinayan ha noqoto maalin adiga dantaada aad gaartay inaad dan ka gaadhid bis aad u baratay inaan dan ka gaaro bis aan u bartay marka ninkii marka in badan wuxuu igu dhihi jiray waa ku guursanaya markii dambe waxaan ku dhahay okay waa ogolaa inaan isguursano aabahaygan u sheegay waxaan ku dhahay nin noocaasaa bartay waxaa rabaa inaan guursado marka ogow aabahayga aad buu ugu farxay runtii waana ii duceeyey gurigeena u imaaday ninkii arooskii ka daran ayaan dhigtay laakiin ninka wuxuu igu dhahay aniga waxaan ahay nin la waardeeyo oo meelahaas aana tegi karin inaan hoolka imaado diyaar uma ihi waxaa rabtidaas waa dhigan kartaa meeshaa rabtidaa ka dhigan kartaa gurigiina imaanaya aniga meherka markuu dhaco waa iska soo baxaya adiga hoolahaaga waxaa rabtid iska soo dhammayso aniga ku dhahay dhib ma lahan meherka markuu dhaco adiga iska baxaan dhahay hooshayda kale anaa qabsanaa aniga marka arooskiaan dhigtay arooskiaa galay ninkii habeenkii arooska markii laysoo galbiyo arooskii aan imaaday habeenkii aan sugayaba maba imaaninba ninka habeenkii ugu horeysay arooskii aan guriga imaadayba maba imaaninba waa wacayo waxaan ku dhahay hayse camal waaba ku sugayay markaas wuxuu igu dhahay shiran leeyahayo shirkan hadduu iisoo dhamaado waa imaanaya anaa kusoo wacayo aniga waa iska joogaya iska qaystay waa dharka iskaba bedelayo meeshaas iska joogta wax imaanaya maba lahanba تلفون أكو عليه تلفون كيسوا بدنسين هاي إنا لله وإنا إليه راجعون habeenkii koowaad duninkaa ku jira maxaa samayn lahayd habeenkii koowaadba gam anigii marka iska seexday oo hurdadayda iska galay maba ka waalino taleefonka duu dansaday anigana waa iska seexday subaxdii aan soo kacay subaxdii markaan soo kacay sidii caadada ii ahayd guriga aabahaygaan iska aaday aabahaygaan iskala soo sheekaystay soo idhahay waxaa leeba arooska shay maxaa igu imaadeen aniga la-aantaada maanaaba joogi kara anoo maalin ku arkin aabbo la-aantaada maanaaba joogi kara anoo dhahay u tagay markii aan sidaas ku dhahay aabahayga xoogaa lasoo sheekaystay anigoo laakiin qalbiga wax badan iska dhahayo aabahaygaan kasoo tagay gurigaan kusoo laabtay ninkii waxaan go-aansaday inaan wicin aan dib dambe aan u wicin habeenkii markay 2 sac meelahaas adiga 2 o'clock markay ahayd asaa isoo wacay markuu isoo wacay wuxuu ilaahay haddaa soo socdaa albaabka markaasaan ku dhahay sacadan aniga hayba ha ii imaanin beriha noo ahaato waa jiifahay waa habeenkii 2 ninkaaga mad albaabka ka furteen xilligu doonaa socday albaabka inaan ka furaa waa diidan waxaan ku dhahay waa jiifahay waa hurdooya sacadan diyaar uma ihi inaan albaabka furo ninkii waxaan ku dhahay ma furaay oo albaabka iska baxada beri anoo fresh ii imaaw ninkii taleefonka inuu igu soo celcelinayo markaan arkay anna waa dansaday markaan dansaday ninkii waa iska baxayoo maalintii ayuu isoo wacay markaas wuu igu dhahay haddaan rabaa inaa imaado albaabka inaa iga furti diyaar ma u tahay mise waa kuu xiran yahay weli gurigiisu mana guriga isagu karaysanaan isagu lahayn guriga ninka lacagta asaa bixiyey kirada asaa bixiyey oo wax alaabta taal asaa bixiyey laakiin anaa tagayoo meesha laga kireynaya anaa soo kireeyay alaabtan anaa dhigay oo anaa la iga kireeyay oo magacii ku qoran marka waxaan ku dhahay ninka waa imaan kartaa ii imaaw markuu ii imaaday marka wuxuu igu dhahay xalay sababtaa albaabka iga furi waayse maxay tahay xalay oo keli anagoo isqabna ayaa bilowday miya madax adeeg markaasaan ku dhahay habeenkii koowaad anigoo aroos ah inaa ii imaan weysid maxaa ka daranaan dhahay adiga xalay aan kaa furi waay kuleelaa ku hay anigana habeen hore ka waranaan dhahay kuleelka ii hay ka waran ninkii marka wuxuu igu dhahay aniga saas inaa iila tirsadid ma ahan iska aargudasho meeshaan ma taalo aniga shiraan ku daahay xalay waqti dambe ayaan ku gaaray taleefonka baa iga damay adi marmarsiyo waxbuu tiri aniga marka waxaa ahay nin siyaasad ku jiro nin dowladda ku jiro anytime loo wici karo waqti walbo loo wici karo oo waqti walbo lala hadli karo ayaan ahay marka inaa ii fiirisid maahan aniga waqtigaan rabana waa imaadaa waqtigaan rabana waa baxaa asaga marka wuxuu leeyahay guri kale oo shaqaalo u joogto oo u shaqaysuu bileeyahay ninkan marka wuxuu igu dhahay ani basaabtaan maba rabiba inaan gurigaaga joogo oo aan seexdo oo aan gurigaan adigaan kuu kireeyey ani guri baan leeyahay maba rabo inaan seexdaba ma rabo inaan seexdo gurigaan markii hore ma ogeyd maya markii hore imuusan sheegin adigoo islahaa khiyaama lagu khiyaama marka ninkan wuxuu igu dhahay aniga ma rabi guriga inaan kula seexdo waxaan rabaa gurigeyga inaan seexdo haddaan imaanahayna maalintii aan ku imaado laakiin gurigeyga inaan seexdo
meeshaas aan joogo cuntana waxba iima karinaysid aniga gurigaagana ma seexanayo sidaas normalkaaga iyo free lifekaaga iskaga noolo aniga runtii waa xanaaqay laakiin waxaan isdhahay xanaaqaada control oo ninkan hadda already waa isqabtiin ilaa dantaada aad ka gaaraysid wuxuu ku dhaho waa inaa u dhahdaa okay xabiibi aniga marka waxaan bilaabay saas maa ku qanacsan tahay haa aniga markii hore maxaa igu sheegi weysaan ku dhahay aniga intaas inaan kaala hadlo guri inaan isla seexanayno muhiim umaan arkin hadda waa isguursanay meeshaan rabno ayaan ku kulmaynaa waqtigaan rabaan kulmaynaa wax weyn ma ahan okay haddaaba adiga ku qanacsan tahay waxaan ku dhahay anigana waan ku qanacsanahay inuu kaa maqnaado haa ma ogolaan lahayd ninka ku guursaday inuu habeenkiiba kaa maqnaado maalintu bis ku yimaado dee already meel aan ugu laabto maba jirto oo waa i guursaday ninkan waa i qaba anna waxaan isdhahay dantaad intaa ka gaaraysid siduu rabo u sameey marka waxaa dhacday ninkii inaan ku dhahay okay maalintaas wuu ila joogay wuu laabtay wuu baxay aniga waxaan dhahay marka waxaan u baahanahay maadaama aad maalintii oo dhan waa maqan tahay habeenkii iima imaadid marmar ayaan kulannaa marka waxaan rabay inaa ii furtid meel ganacsi aan waqtiga iskaga lumiyo si aan u daalin caajis aan u dareemin maadaama aad ila joogin habeen maalin waxaan rabaa meel aan shaqo inaa ii samaysidaan rabaa oo habeenkii maalintiina kuma imaanaya maalintii xitaa ima imaanaya isbuuci waxaa laga yaabaa inuu 1 to 2 times inuu ii imaado oo muxuu ku guursaday dan ku imaanaya markaa isbuuci 2 jeer uu ii imaanaya ama 1 jeer acuudu billaahi ma ayidabad u ekay ayadaydu uma ekeeno oo dhalaan u ekaa sida dhalacadeeyada baan u nuurayde laakiin ninkan wuxuu isleeyahay asagii waa guri kaluu leeyahay gabadha u shaqaynaysaa u joogto ilmuu leeyahay xaasuu leeyahay soo maba rabo soo maan inuu nolol inuu qabana wuu rabaa inaan meel isla deganaanana ma rabo marka waxaa dhacday ninkii inaan ku dhahay meel shaqaan rabaa inaa ii samaysid si aan adiga kuugu mashquulin anigana aan u shaqaysto ninka marka wuxuu igu dhahay diyaar waaye waxaa rabtid inaad ka shaqaysid marka waxaan ku dhahay waxaan rabaa Dubai inaan aado Sacuudi inaan aado dahabka dadka keeno inaan ku darsamaan rabaa soo lacagaan u baahanahay dahable ayaan rabaa inaan noqdo markaas wuu igu dhahay meeqaa kugu filan oo ay isleedahay waa ku bilaabi kartaa markaasaan ku dhahay 50,000 lee rabaa wax badan maahan $50,000 markaas wuu igu dhahay 50,000 waa badan tahay 50,000 dhan kuma siin kari laakiin waa soo fiirinaya wixii aan ku siin karo anaa kuu keenayo aniga marka waxaan leeyahay xaaji madaxa u masaajeeya oo waxaa iska dhigaa raalliyadii adduunka laakiin been bay kaa tahay been bay iga tahay cid kasta ha moodin gabadh kasta oo lagu masaajaysa ha moodin inay raalliyo tahay balaayo kale wadaa sidee ugu masaajaysa maxaa ku samaysaa odayga inaan saliidda oo loogu tiragalay masaajka intaan soo qaado aan u mariyo aan u masaajiyo lugaha dhihin qoorta ha dhihin madaxa dhihin kadibna isagoo fresh oo faraxsan ayuu iga tagaa marka waxaanba noqday masaajatoor oo masaajkuu isoo doontaa markaas wuxuu leeyahay jirka dhan waa iska keykoo jiraayo inaa i kala bixisidaan rabaa aniga marka waxaan iska dhigaa naag raalliyo oo baari oo waxa noloshaan ku qanacsan ayaa iska dhiga oo waxaan dhahaa xaaji barkaadaa jiro aniga waa kuu xiisaa ma ogtaa intaa iga maqan tahay alla jeclaan lahaaya inta dhan maalin walba inaa ila joogtid habeen walba inaa dhinacayga jiiftid habeenkar markuu maqan yahay maalin walba messajaan u diraa oo waa kuu xiisayo waa ku jeclahay yaa anoo dhahay ma heestaa markaa raabkaa tiriyaa saan u hiisin raabkaa tirisaaba haa xaanaka yaacadin marka waxaa dhacday ninkii inaan sambaatiyo badan aan ka diyaarsadayoo aan u noqday sidii asaga rabay ayaa u noqday laakiin sidii aniga rabay ma ahan sidii asaga rabay isbuuci 2 jeer ayuu ii imaadaa markii hore hal mar mararka qaar 2 ayuu imaan jiray hadda wuxuu bilaabay isbuuci 2 jeer ilaa 3 jeer inuu imaado sheekada waxay socotaba ninkii wuxuu ii keenay inta aan weydiistay haafkeed ayuu ii keenay oo 20,000 uu ii keenay adiga 20,000 uu ii keenay wuxuu igu dhahay intaan waa ku bilaabi kartaa intaan ku bilaabo kadibna adiga gadaal baan wax kale kaaga dari doonaa waa ku kabi doonaa intaas ku bilow markaasaa intaan dhonkaday waxaan ku dhahay xaaji waa mahadsantahay waxaad haysid inaan weynahay waa ogahay saan inaad tahay waa ogahay inaad deeqsi tahay waa ogahay nin fiican inaad xayeysiin ammaan intee ka dhunkatay odaygaagii slow kiss intee kale yaa ilaah caalamiin raabkana wuu socdaa waxaad haysaa dhulka dhiga wey dhulka dhiga waxaad haysaa ninkii aniga marka lacagtii waa qaatay laakiin dahab maanan gelininoo meelaan dhigtay meelaan dhigayoo waxaan ku dhahay haddana xaaji waxaan rabaa inaan wadankan waaba nacay waa iga hor imaaday
waxaan rabaa inaan ka guuro oo Kenya inaan degaan rabaa say u aragtaa markaas wuxuu igu dhahay Kenya ma ahane Ethiopia ayaan ku dejinayaa Ethiopia waxaan ka haystaa baasaboor Ethiopiana haystaa meesha baan baasaboorkaaga qaadayaa meesha baan kan ku yeelayaa meesha ayuu igu dhahay markaas waxaan ku dhahay Ethiopia ma i keenaysaa ha okay dhib ma lahan ayad xitaa waa tagayaa ninkii visa ii soo qaaday oo Ethiopia igu dejiyay Ethiopia markaan hadal dhaho dhaqso i maqlay dhiga fudeed kaal iska ark ninkii oo soo waday Ethiopia u keenay Ethiopia markuu i keenay Ethiopian degayo meel buu yar ku i kireeyay Ethiopian iska degay marka waxaan ku dhahay meeshaan rabaa ganacsi inaan ka bilaabo ganacsiga ka sii wado laakiin aniga ganacsi uma socdo ee waxaan u socdaa inaan European iyo Mareykan iyo meeshii aan helo aan u sii baxo aan sii aado laakiin asaga waxaan ku dhahay meeshaan rabaa ganacsiga inaan ka sii ziyaadiyo oo Afrikadaas inaan tago oo aan ka noqdo ninkii oo soo waday wuxuu i keenay Ethiopia ayaan degay markaas wuxuu igu dhahay bil walbo hal isbuuc ayaan ku imaanaya bil walba hal isbuuc aan ku imaanaya tasmiya okay waa ogolahay meeshii aan degay ninkii bishii hal mar ayuu iimaan jiray halka marna isbuuc ayuu ila joogi jiray aniga marka waxaan sameeyaa maanta waxaa leeyahay xaaji waxaasaan u baahanaa shopping u baahanaa guriga baa wax saanka ee lacag extra u baahanahay bil kasta markuu imaado lacag baan ka qaadaa hadday u yartahay 1,500 aniga ninka marka waxaan dhahaa mar walba waxaasaan rabaa waxaasaan u baahanahay adiga markaa maqantahay ma ogtahay waxaana saan oo waxaan mar walba uu ii imaado waxbaan ka qaada mar walba uu ii imaado waxbaan ka qaada mar walba uu ii imaado waxbaan ka qaada markii dambe waxaa isbaranay wiil UK ka imaadayo meesha u imaaday dalxiis ama ahaan u imaaday ayaan meesha isku aragnay wiilkii iswareysanay meelba isku aragnay oo meel koofiga canjeer Ethiopiankii waxaas laga cuno oo maqaayad ah meesha isku aragnay markii meesha isku aragnay waa iswareysanay markaas wuxuu igu dhahay meesha maal degan tahay ma lagu qabaa maya leema qabo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madal waqti leema qabo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun subhanallah ninkii waxaan furaay leema qabo oo meeshaan deganahay laani waxaa meesha u joogaa ogo ninkii marka wuxuu igu dhahay nambarkaada isii oo gabar shadanaa tahay oo saana tahay oo nambarkaada inaa isii sidaan rabaa ninkii nambarkayga soo siiyey markaan nambarkayga soo siiyey ninkii wuxuu bilaabay inuu isoo waco i wareysto oo uu igu dhaho maxaa meeshaan u joogtaa maxaa kuu soo dhow maxaa is leedahay maxaa marka waxaan ku dhahay waxbaan sugayaa leenkii aan sugayaa inuu iga halaabay leen kala hadda u joogaa in la ii bilaabo markaas wuxuu igu dhahay haddii aan ku wado ka waran aniga oo aan leen kuu xareeyo oo meesha aan ku geese oo aragtaa markaasaan waxaan ku dhahay ma igeeni kartaa oo macquul ma tahay uu igu dhahay see macquul ahayn aniga ingiriiska waxaan ku leeyahay baasaboor weyn soo haddii aan hadda ku guursado 6 month gudaheeda ayaa ingiriiska kugu geen karaa markaasaan waxaan ku dhahay aniga ma rabi inaa hadda i guursatid ma rabi inaa hadda i guursatid markaa ingiriiska ayga dejisid oo lugahayga ay ingiriiska tagaan waa laga yaabaa inaa i guursatid laakiin hadda no ninkii kale markaa leedahay waa ikheeba ninkii kale waa ninkii marka wuxuu igu dhahay aniga waxaan anigoo ku guursanin ingiriiska kuma geen karo oo qof aan wax xarig ani asaga isku kay xireynin inaan ingiriiska geeyo waxa ay dhihi doontid ma aqaano soo aniga saan kuga aaminaya macna inaan ku wado oo ingiriiska ku geeyo waa khiyaamo labaad daawada waa khiyaamo kale inna lillahi fariid waxaan ku dhahay ladana ma fariid soo qortay adigana markaasaan waxaan ku dhahay adigana saan kuga aaminaya haddaa i guursatid inaa ingiriiska i geen doontid aleen gabdho badan ayaa aragnay anaa ingiriiska ku geenaya anaa Canada kaa dejinaya anaa Mareykanka ku geenaya si loo leeyahay meeshaan lagu guursado oo ilmo looga dhalo meeshaan ay ku gaboobeen markii dambena meeshaan lagu furay adiga saa ilmo in laga dhalo oo meeshaan lagu dejiso ma diidaysid qaniinyo xitaa ma jirto laakiin waa inaa ismehersanaa waa inaa isguursanaa meherkaa dhacayo laakiin qaniinyo la'aan aniga waan baxayaa meeshaan ku laabanaya aroos camal wax baan dhiganaynaa kadib sabridiyaa la qaadaya meeshaa la geynaya sidaas ayaan kugu wadi karaa aniga marka waxaan ku dhahay waqti waa inaa isiisaa si aan familkay ugu sheego aan isku guursano waxaa dhacday ninkii duqii bishii uu imaanaya la gaarayo jikuu soo dhahay ninkaagii kii kale ku guursaday ima guursanin oo wuxuu igu dhahay waa inaan ku guursadaa
ninkii duqi markuu imaaday marka waxaan ku dhahay dhegeyso aniga ma ihi hoteelada intaad markaa soo daashid aad kusoo degaysid oo nasiina aad kasoo doonanaysid ama ila joogi kartaa oo habeen kasta dhinacayga aad jiifi kartaa aniga ma rabi inaa isii qabtid oo waxaan rabaa inaan kala tagno markaasu wuxuu igu dhahay weligaagaba waxaa ahayd raaliyo janaba ahayd gabar oo idibla ahayd maxaa ku bedelay markaa meeshaa imaaday markaasuu igu dhahay enaf intaana igu filan intii tabarteeda waan kuu samray intaan ka badan kuuma sabri karo aniga ma rabi hal habeen inaan seexdo nin la-aan soo waa inaa i furtaa adaa dhahay anaa dhahay haa laakiin waa beenta ninkii kalaad rabtaa ninka kale xitaa ma rabi aniga bixitaanaa rabaa waxa waa khiyaamo ducaysan thank you inantaas ducaysan usoo diraysa inanta wax inkasta ay balaayo taageerayso u mahad celiyo koley laakiin dee inantiyada kuma dhicina markaasa waxaa dhacday ani kan kale xitaa ma rabi laakiin waxaan rabaa inaan meesha ku tago oo keliya marka waxaa dhacday inaan ku dhahay ninkii maalin walba daa ila joogayn waxaa rabaa inaa i furtid oo inaa isii qabtid ma rabo ninka wuxuu igu dhahay maya inaa kasoo fikirtaa nolosheeda sidaan ku barbarinin waxaan rabay horumarkaada inaan ku gaarsiiyo waxaan rabay kan inaan ku yeelo waxaan rabay kan inaan ku yeelo wixiiba ii tiriya waxaan ku dhahay maya intaan ka badan ma sii joogi kari marka waxaa kuu roon inaa i fasaxdid adigana sidaasaa kuu roon anigana sidaasaa ii fiican inantaas ma ku saxsanta ina ninkeeda iska furto sabab la-aan ninkii wuxuu igu dhahay waa inaa kasoo fikirtaa oraa fikir leyna fikir ma rabiye inaa i furtidaan rabaa haddaa soo laabanaysid mar kale guri inuu meeshaan kaa soo jirin ogow aniga waxaan rabaa gurigan inaan wareejiyo taxriibna waxaan rabaa inaan galo haddii kale waxaan dhahay social media abaa iska arki doontaa oo sawirada intaa soo dhigo baa ninkan waxaan igu sameeyaan ku dhihi doonaa haddii kale haddaba na kala badbaad ma ninkaaga odladaysa waraama kaa qaadaya haa ninka waa nin weyn oo ku jiro dowladda Soomaan in meelahaas lasoo dhigo mar oo Facebookan kusoo dhigaan dhahay haddii aad fasaxi weysid warana qaawin aniga qaawnaa maba dhihinba laakiin waxaan ku dhahay waxaa dhahayaa ninkaas qabay kan uu igu sameeyey un laakiin waqtigii qaawnaashaha iyo waxaas maba jirinba dala ku arag ninka tuu yaabay oo igu dhahay maa sheekadaas meeshaas baday kaa joogto waan ku fasaxayaa aabahagaan la hadlayaa asaan kuugu soo dhiibayaa meherkaaga asaana kuu fasaxayaa kadib aabahayga isoo wacay markii laga joogay adiga 2 week markaasuu igu dhahay wiilkaasa isoo wacay oo saas igu dhahay sababtaa u rabtid in lagu furo maxay tahay abo aniga waxaan kugu ogaa gabar baari inaad tahay waxaan kugu ogaa inaad saan tahay ninkaaga furin inaad ka codsatid ma fiicno ninkaaga inaad la joogtidaan jeclaa inaad ilmo dhashidaan jeclaa inaasaan markaasaan ku dhahay aabo ninkan kuma faraxsani oo ilama joogo oo maalin kastuu iska maqan yahay shaqaan ku jira oo ileeyahay isbuucii hal maalin oo ii imaada bishii oo dhan ba hal maalin oo ii imaada 2 maalin aan ku dhahay anigana noloshaas ma rabi waxaa rabaa qor murugada iyo dhibka oo ila qiibsado oo ila nool saas darteed aab inaan iska furo ayaan niyadeyda ku qanacsan marka waa inaa iga furtaa markaas wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan guriga iska dhaqatido waxaas buu igu dhahay markii dambe waxaan ku dhahay ma rabi adiga ninkii meeshii ayuu igu furay oo waan ku kala tagnay maxay soo wadaa marka ninkii markii meeshii aan ku kala tagnay ninka kale wuu tuu laabtay oo ingiriisku ku laabtay oo hadda waxaan ku dhahay aniga guurkaaga degdegtaan diyaar uma ihi waa inaan ku bartaa ninkii wuu laabtay oo markuu laabtay meeshuu tagay markuu tagay waxaan ku dhahay goormee soo laabanaysaa oo meeshaan kusoo laabanaysaa markaasuu wuxuu igu dhahay sanadka dambe ayaan soo laabanaya laakiin 1 sano waa inaan meeshaan joogaa markaasaan ku dhahay sanadka wada xiriiraan samaynaynaa haddii aan isfahno isguursan doonaa haddii aan isfahmi weynano ku kala tegaynaa ninkeedii nin kale iskaga furta oona ogeynba inuu xitaa gabadh qabo waa lala hadlayay saa ninkii ula sheekaysanayay mid kale oo Mareykanka ka imaaday ayaan bartay haddana mid kale oo Mareykanka ka imaaday taraagla mid taraagla oo kii kale ka shidan oo kii kale ka qurux badan oo 6 pack lahoo yaa hindaraandar oo gacmaha ku sita waxaan ku dhahay aniga Mareykan iyo adiguna saacadan ku seetay aniga marka Mareykanka iyo Yurubti aan rabay waaba iloobay oo ninkan waa ku hindaraandarayba oo waxaan qalbiga qacay dhahay waxaan bilaa ninka wuxuu igu dhahay marka waa maasha Allah meesha ma degantahay ma lagu qabaa maya markaan waaba saxlay ma qabe markaasaan ku dhahay la ima qabo markaasuu igu dhahay nambarkaaga ma isiisid waxaan ku dhahay diyaar adiga ka fiican maa la siin lahaa lambarkeyga ninkii nambarkeygu iga qaatay asagana wicitaano iyo xiriiraan isku bilaabay markii aan la xiriiray wuxuu igu dhahay Mareykanaan jooga Mareykanaan ka shaqaystaa intaas sana Mareykanka jooga
intaa maana guursanin oo doob isku tuntay baan ahay. Markuu saas igu dhahay waxaan ku dhahay anigana waa soo guursaday, hal nin baa soo guursaday, hal wiilaan usoo dhalay, waa soo kala tagnay oo isoo xumeeyey, kadibna meesha anaa joogaa oo waxaan rabaa leen iyo waxaas Yurubta inaa aado. Markaasuu wuxuu igu dhahay ninkii haddii ka waran meeshaan aan ku dejiyo, nololtii u dambeysay aan ku geliyo oo waxaad doontid aan kuu sameeyo, laakiin meeshaan aad degtid. Markaasaan ku dhahay aniga ma rabi meeshaan inaan dego, Afrika inaan sii joogo ma rabi, buufisaa igu dhacay, buufisaan rabaa, meeshaas inaan tagaa rabaa, nin meeshaas aan igeynin inuu i guursado xitaa lagama yaabo. Markaasuu igu dhahay ninkaas waxaad tahay adiga Maraykan mise Yurub doon baa tahay ma ogiya, nin doon matiiduu igu dhahay. oo runtiisa lagugu dhufay nin doon ma tihin Maraykan doon baa tahay shaashada inoo garaaca hal mar. Marka waxaan ku dhahay Maraykan doon waa ahay, of course waa rabaa Maraykan inaan tago, laakiin adeeg inaa i guursatid oo meeshaan 2 cunug ama 3 cunug iga dhashido kadibna albaabka aa ka baxdid yaa waxaan ku dhahay damaanad kaa noqon karo inaad meeshaan igu xanaanaynaysid oo cimrigaaga inta ka dhiman isoo biilaysid maanaa og meeqaa saas lagu xumeeyey oo meeshaan joogaan dhah. Markaasuu wuxuu igu dhahay ani waxaan diyaar u ahay nololtii ahayd, aniga ilaah baa og waxaas bedeli doono, laakiin nololtii ahayd inaan dhabta kuu soo saaro meeshaan Afrika aan ku dejiyo ayaan diyaar u ahay. Haddaad rabtid welcome, haddaad rabinna dee allaha ku aruuriyo oo mid kale allaha kuu sahlo.